الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دردارنكي iyo dardaaranadii luqmaanul xakiim ayaan ku jirnay dardaaranka intuu socday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dardaaranka noo sheegahayay dhaxda waxaa laga soo geliyey mowduuc aad muhiim u ah kaasoo ah labada waalid in baari loo noqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala qisadii iyo dardaarankiioo socda dhexdoodu ku keenay waana waajib in labada waalid baari loo noqdo labada waalid xuquuqda ay leeyihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam in badan buu sharxay oo axaadiista ku tilmaamay nabiga markii la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam dadka yaa ugu xaq badan wuxuu yidhi hooyada haddana mar labaad baa la weydiiyey wuxuu yidhi hooyada haddana mar saddexaad baa la weydiiyey wuxuu yidhi hooyada markii afraad baa wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam aabbaha ku xigo marka labada waalid in baari loo noqdo sidaasay shareecada meel adag u dhigtay una weyn tahay xuquuqdoodana way kala weyn tahay midda hooyadaa weyn midda aabbaha ku xig dardaarankaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala noo dhexgeliyey labada waalid in wax kasta lagu adeeco oo wax kasta looga dambeeyo ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sheegayaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo tilmaamayaa inaan lagu adeecaynin labada waalid wixii macsiyo ah oo sharciga khilaafsan oo sharciga dabamarsan laguma adeecayo in badan waalidka haddii caaq lagu noqdo ama caasi uu ku noqdo qofku wuxuu la kulmayaa cuquubo adduunkana wuu kula kulmayaa tii aakharana way sugaysaa waxa weeyaan labada waalid waa in baari loo noqdo waa in la adeeco waa in la wanaajiyo waa in la ixtiraamo waa in la qadariyo waa in madaxa ay kuu saaran yihiin labadaada waalid ilaahay subxaanahu wa tacaala dardaaranada intuu noo sheegayey wuxuu ku keenay afar arrimood waa la isfaray al-amru bibiri alwaalidayn waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna amray musaaxabatu alwaalidayni fi dunya bilmacruuf labada waalid in si wanaagsan oola dhaqmo oo loola saaxiibo waxaa kaloo ilaahay uuna amray subxaanahu wa tacaala waddadii dadkii ambiyada ahaa iyo saalixiintii waddadooda in la raaco afar ilaahay subxaanahu wa tacaala qisada intay socotay wuxuuna amray iqaamatu asalaa salaada in la toosiyo wuxuuna amray alamru bilmacruuf wuxuuna amray markii la soconayo socodkaada iyo hadyigaada iyo qaabkaada inuu ahda mid dhexdhexaada wuxuuna amray ilaahay subxaanahu wa tacaala codka iyo sawdka in hoos loo dhigo intaa waxay ahaayeen awaamir ilaahay uuna siinaya subxaanahu wa tacaala afar shayna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu naga reebay intay qisada iyo dardaaranka u socday wuxuu naga reebay annahyu can ashirk in ilaahay subxaanahu wa tacaala wax lala wadaajiyo mamnuuc wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala naga reebay munkarka iyo xumaanta in la reebo annahyu can ilmunkar annahyu can tasciiri alkhaddi dadka inaad dhabanka u dadabto ood isla weynin iyo dhaqan xumo aad u muujiso ayadana waa nagala reebay afar annahyu can ilmashyi maraxa qaab xun in loo socdo ayadana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu naga reebay dardaaranka intuu socday hada wabillahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi